mas-uuliyiin ka socda maamulka cisbitaalka Sanaag Speciality iyo mas-uuliyiinta shirkadda Sebco ee leydhka ee magaalada Cerigabo ayaa maanta gaadhay heshiis leydhka lagu gelinayo cisbitaalka oo kolkii hore isticmaali jiray mashiino leydhka dhaliya oo gaara. Heshiiskan ayaa yimi kadib markii shirkadda Sebco hoos u dhigtay qiimaha leydhka uu markii hore ahaa iyo leydhka joogtada ah ee shirkaddu bixiso. Ugu horreynna waxaa mas-uuliyiinta labada dhinac ay si wada jir u kormeereen xarunta dabdhalinta shirkadda Sebco iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee Sanaag Speciality Hospital. Maamulaha cisbitaalka Cabdiraxmaan Xuseen Digaale iyo Master Sheldon oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Dr. Hilhan ayaa ugu horreyn faahfaahiyay heshiiskan ay gaadheen labada dhinac. maamul ahaan Sanaag Speciality Hospital waxaanu maanta wada furaynay partnership aanu la sameynay Sebco Sanaag Electricity Power Company runtii sida aad u jeedid way soo dhameystireen line-kii electricity-ga cisbitaalku hore wuxuu u isticmaalayay generators oo ay aad u adkeyd kharashka ku baxaya iyo koska aanu isticmaalaynay runtii ay aad u badnayd. hase ahaatee waxaanu heshiis partnership wada saxiixanay Sebco company iyagoo qiimo macquul ah runtii u go'aamiyay inay ku siiyaan powerka uu baahan yahay cisbitaalkani. waxaan rajaynayaa wax badan inay ka bedeli doonto gobol Sanaag projectkan weyn ee leydhka ee ay wada maalgeliyaan ganacsatada localka ah iyo UK8 ee leydhka oo runtii iminka solar ah oo dhammaan magaalada Cerigabo ay wada isticmaalayso solar iyo cisbitaalkan Sanaag Speciality Hospital oo ay wada maalgeliyeen Asli Maydi iyo Dr. Hilhan. runtii labadan project aad bulshada reer Sanaag waxay uga caban jirtay inuu leydhku qaali ku yahay. waxay kaloo aad uga caban jireen caafimaadka gobolku inaanu tayeysnayn maadaama laba mashruuc oo waaweyn ay ku soo kordheen gobolka. waxay kor u qaadaysaa horumarka iyo koriinka gobol ahaan iyo guud ahaan Somalilandba. aad baan ugu faraxsanahay runtii. Between Sebco's renewable energy project and the Sanaag Specialty Hospital. I think the merger of these two initiatives, sustainable, affordable healthcare and sustainable, affordable energy, are going to help transform the Sanaag region together. And we're very grateful for our partnership with Sebco and the generous support from UK8. Maxamuud Axmed Liibaan oo ka mid ah guddida boorka sare ee shirkadda Sebco ayaa geestiisa ka hadlay heshiiskaasi waxaana uu sheegay in labada mashruuc ay horumar u horseedi doonaan gobolka Sanaag. annagu haddaanu nahay shirkadda leydhka ee Sebco waxaanu ku faraxsannahay inaanu mashruucan dhakhtarka oo aan maanta la tusay la yidhaaho Sanaag Speciality Hospital in aanu dabka siino. runtii waa mashruuc isaguna sida kaayaga uu tamartii Cerigabo wuxuu uga bedelay oo dadkii maanta tamar la iibsan karo iyo leydh la iibsan karo ay Cerigabo haystaan oo danyartii xitaa ay ka faa'iiday. iyaguna waxay keeneen runtii dhakhtar looga baahnaa Cerigabo. saaka markuu isoo tuurgareeyay aan soo arkay qaybihiisa kala duwan qalab aad u casri ah oo aan runtii dalka intiisa badan oolin ayaa yaala. markaa waxaan isleeyahay labada mashruucba kor waxay u qaadayaan mid walba mitir waxay ku daraysaa Sanaag. marka energy-gii dhinacii tamarta laga baahi baxo dhinacii caafimaadka ee qofku mar walba hargeysa qabanayay inuu Cerigabo ka helo. runtii iyagana waxaan leenahay waa mashruuc aad u wanaagsan waan idin mahadnaqaynaa. Cabdiraxmaan Ilsar, Saab TV, Cerigabo.